أصحابي halkan waxaa ka dhow suuqii cusba ee Soomaalida oo hadda la furay sidaas daraadeed suuqan idin geynaya ila socda waa soo arkaynaa suuqa waxa uu yahay meeshan ayuu ka dhow yahay suuqa cabaar ayuu jiraa hadda xoogaa waa gaali sidaan dariiq u socday marka waa tagi doonaa waa aragtaan meesha amrooyo sidaas daraadeed ila socda suuqan idin geynaya waa soo arkaysaan qaabka loo furay dukaamada Soomaalida marka ila socda daawadayaal meel bood joogtaan iyo si walba ila socotaan halkan waa YouTube-ka Liban Kulow suuqii Soomaalida ee dhawaan laga furay wadada Sitiinka xaafadda Bawaadi ayaan soo galay oo haatan furmay badankiisu wuu furay suuqan wada ogtiin ilaa dhowr jeer hore ayaan idin soo baahiyay isagoo ay dayactir ku socoto laakiin hadda ilaahay maadii suuqu waa furan yahay waa mid caadi ah oo loo soo dukaamaysi tagi karo halkan waxaan kula kulmay ganacsade xareedo ayo xareedo sheekh xareedo adigu waxaad ka mid tahay dadka hadda halkan dukaamada ka furtay ka soo guray Suxayfa Mall goorma la furay suuqan waxaan furnay walaal kowda Ramadaanka ayaan furnay intii hore oo dhan waxaan ku sameeynayna dayactirayna marka kowdii Ramadaan maalinta Sabtida ahayd ayaan furnay hadda dukaamaha kulli waa wada furan yihiin in yar mooyaan waa gartay tirada dukaamada hadda halkan ay Soomaalidu ka furtaan waa mise waa 23 okay maadaama aad ahayd qof la yaqaano oo ganacsata ah laguguna yaqiinay suuqii Suxayfa Mall ee aad ka soo guurteen dadka hadda weli ku doondoonaya ama ku baadigoobaya maxaa fariinood halkan u marinaysaa walaal waxaan u marinayaa fariin muxuu ahayd in halkan la ka helo dukaankeeni oo sabuunkeeni oo muxuu ahayd sabuunkeeni oo aan isweynay waxaan fariin u marinayaa inay halkan noogu soo dhawaadaan Sitiinka waa gartay hadda waxaa lagu jiraa bishii barakaysneed ee Ramadaanka ayaan ku jiraa dabcan waxa soo socda waa ciid insha Allah dadka Soomaalida ah ee ku daawanaya kuwooda ku nool waqooyiga America qaaradda Yurub Africa iyo halkan hadda aan joognaba ciidda maxaa discount oo haysa dharka haysana waa dhar nooce ah dhar walbaan haynaa wax cusub oo jadiidna waa keenay dharkaan hayna waa kuwan dhar jadiidaan u keena dadka ciidda insha Allah discountiyaan u sameeynayna walaalahayna Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay Ramadaan Kariim وعلينا وعليكم إن شاء الله جميعا صومالي ميل كستا اي جوغان انتي مسلين اهو داوديال halkan waa dukaanka Macrad Salaama oo ay maamusho ama baleedahay xareedo oo hadda halkan idin kala hadlaysay hadiiba dabcan aad u baahan tahay dhar tayo leh noocyadiisa kala duwan hadii ay noqon lahaayeen duruucda ay dumarku ku xarkoodaan dharka caruurta duqeytida iyo waliba dharka dhalinyarada sidoo kalena macaawisyada ay xirtaan odayaasha iyagu doonaya inay xarkoodaan ee uu Ilaahay xoolaha siiyay waa ka mid ah macaawista loo yaqaano qabiiliga go'a shaalka oo noocyo badan leh iyo wax walba oo xaraka ah wax aad ku soo hagaagi kartaa ama u soo doonanaysaa si sahlan waa dukaanka Carwo Salaama oo isagoo haatan lagaga furay xaafadda Bawaadi wadada Sitiinka weliba ka soo horjeedka suuqa la yiraahdo suuqa Banda may waxaan u maleyn Tayba inuu yahay sidaas daraadeed halkan ku soo hagaag suuqii halkan laga furay waa lagu soo dhaweeyay Soomaali Maxameday meel walba joogtaan soo booqda dukaamankan hadii Allah awood u leeyahay ka noqdo nala soco dukaamanka kale ayaan idin soo sawarayna daawadayaal maadaama aan ku jirno bishii barakaysneed Ramadaanka dadku intooda badan waxa jiraan taraawiixi hase yeeshee suuqi waa kan waa uu furan yahay macaaridka magacyadooda iyo dukaamanka oo dhan ayaan halkan idin soo dhigaya ila socda waa ka aragtaan intaasoo maxalla ah dhammaan waa maxallaad Soomaali ah dukaanka suuqa oo dhan wuu furan yahay waa aragtaan looxada meesha ku qoran dukaamanka oo dhan waa jaahis kaliya waxa lagu maqayaa salaada taraawiixiga hadii aad marka u baahan tahay inaad halkan ka dukaamaysto waqti walba waad imaan kartaa halkan waa ka halka albaabka laga soo galo weeyaan marka soo dhawaada daawadayaal halkan aan idin kala hadlayo waa suuqa cusub ay Soomaalidu u soo guureen kadib markii laga soo guuray suuqii weynaa ee Suxayfa oo ahaa midka kaliya ay Soomaalidu macruuf ku yihiin marka ay timaado boqortooyada Saudi Arabia gaar ahaan magaalada Jeddah haddaba haddii aad ku nooshahay waqooyiga America meel ka mid ah qaaradda Yurub Afrika iyo waliba wadamada khaliijka gaar ahaan magaalada Jeddah waxaan ku sheegayaa in haatan lagaga furay suuqan meeshan oo ah wadada Sitiinka xaafadda Bawaadi ka soo horjeedka suuqa weyn ee Tayba la yiraahdo ama isagu ka soo horjeedo kubri qashabka isagu kala bara halka u dhaxaysa suuqii hore ee la dhihi jiray Xijaaz iyo suuqa kale ee loo yaqaano Bin Daud ugu dambeyntii waxa halka ila jooga mid ka mid ah aabiyaasha iyagu halkan dukaanka ka furteen maxaad leedahay ugu dambeyn dadka Soomaalida u sheegaysa assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh wa Ramadaan Kariim
hadda waxaan kasoo tagnay saxiifa mol oo ku yaalo oo wadada oo sitiinka hoose hadda waxaan usoo guurnay suuqa albawaadi wuxuu ku yaalaa sitiinka suuq tayba waxaa waaye wuxuu ku yaalaa meel oo yacni shaarac quraysh iyo u dhexeeya shaarac sitiinka waxaad kasoo laabanaysaa kubriga hoosis newter baad samaynaysaa marka newterka waxaad qabanaysaa dhinaca oo midigta ah saad u socotid waxaa kaa hor imaanaya bangi oo faransi bangiga faransi agtiis baad kasoo laabanaysaa suuqa meesha ku yaala assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu dambayntii waa liibaan laki oo aad runtii uga barateen inuu marba idiin soo gudbiyo halka ugu muhiimsan ee ay bulshada soomaalida ahi dhaqaale ahaan ka kobci karaan inta aan dib dambe video noocan oo kale ah mar kale ugu kulmi doono waxaan kaa codsanayaa youtube-ka haddii aad igu cusub tahay subscribe isar haddii aad hore ila joogtana waad mahadsan tahay laakiin laagta ii badi commentiskana igu soo waal waayo dadkeenna soomaalida ah ayaan halkan ugu adeegaya maca salaama fi amaan illah